bismillaah shabaab, assalaamu calaykum. Maanta waxaa inta usoo fariisanaa haddana cashar kale ama barnaamij kale, barnaamij internet free ku siinaya saa u barateen ki4a barnaamijkan la dhahayo. kolba barnaamijkan ki4a barnaamij cusub hadda soo baxa waaye, insha allah sharaxiisa bilaabana. barnaamijka sittinga imaane awal xaaja horta waxaa soo sameyne server waxaa ka sameyne fastssh.com markii fastssh.com aa dhahda sergin aa dhehe. sergin ka dambo qaarada dooro ku leeyahay, qaarada doorane select in Europe aa leenahay, select in Europe. qaarada Europe aa ka dooranay, ka dambo waxaa dooraneynaa wadankee doorana marka xayalla ayi wadan markaas adi aa rabtid, laakiin badanaa France iyo Netherland aa u fiican, laakiin ani hadda France aa ka doorana. France markii aa ka doorato waxaa imaaneysaa meeshan ay tahay username iyo password calishaan si aa u isticmaalno internet free. username iyo password, username waxaa ka dhigaa Radwan 110,100 username. passwordkana Daawud ikbinkayne report meesha ay ku qoran tahayna tiga saarena. ka dambe waxaa dooraneynaa calaamadahan oo ay sheegeen oo nafaraya sawirka. calaamadihii markii aad doorana ka dambo meeshaa saxay soo qoray sax. meesha markay noo soo qorto create account yaa leena, create account calishaan accountiga aan samaysaneynaa, calishaan accounti internet free aa ku isticmaalna. password iyo username aan samaysaneynaa insha allah. akoonkii hadda noo socdo maasha allah, saa ujeedaan waa noo sameysmay akoonkii. hadda waxaa sameyneynaa, waxaa koobi gareyneynaa usernameka markii u horeysa koobi gareyneynaa iyo passwordka iyo host addresska. usernameka koobiyeyna waa bixinaa, barnaamijkaa tegeynaa, waxaa raadineynaa meesha ay ku qoran tahay username firaaqo waaye. adi markii ugu horeyso username aa ku qoreynaa, kaaga markii ugu horeysa firaaqo waaye. ka dambo passwordka koobiyeynaa, koobi bixinaa, password agtiisa imaaneynaa, kaaga firaaqo waaye. marka kale intaa ku koobi gareyneynaa. okay, waa bixinaa. haddana waxaa soo koobi gareyneynaa host ip addresska koobi leenahay. ka dambe waxaa imaaneynaa host addresskii markii aa imaano addresskii ku dhufaneynaa. okay, intaan markii saana u sameyno ka dambo mulaaxadada ugu weyn waaye enable conversation meesha ay tahay labada isheega isku xigto tigaa wada saareyna ona leenahay labadoodaba. labadaas on markii aa saarno ka dambe waxaa noo dhiman address inaan sameyno, calishaan proxy inaan sameyno. proxygan waa shaqeynaa hadda, proxygan hadda waa ii shaqeeyaa. proxygan mumkin ii sheegeen waa istaaga. proxy sidii loo sameysanayona markale casha mid kale kasii bixin inaa isna. proxy intaas ani aa ku qoray internet 8 aa ku qoray. ka dambo http headers aa ku dhiman, http headers saa u heleyno waa mid horena cashar horena waa ku bixinay, kana waa ku bixineyna. http headers intaana ku qoray host static.09.dex online shaqta host 2.0.auto online.de. intaan markii aan ku qorno okay aan leenahay. intaan markii aan ku qorno, intaan hadda aa sheegayna markii aan ku qorno okay aan leenahay.
okay, hoostadan waxaa ka keeni kartaa isheega http injector sharaxiisa horey waa jiray. http injectora waxaa ka tiraa meeshan hoosta iyo isheegeen inta ay ka bilaabato. hoosta bisa kasoo reeba, inta kale kasii tira. haddana waxaa kasii tira x online dhexdooda hoosaa taabana, hoos soo dejin alshan aliif meeshay tahay ilaa iyo .de meeshay tahay aa ka reeba bise .de aa soo reeba. labadaas bisa kasoo reebana, intee ka keena waaye. intaan kalena waa tira .de iyo .de labada sadar. markii saasaa u reebo waxaa ka keenaynaa http injectora jooga meeshaan hadda. http injector kol hore waa soo sharaxna. http injector intaa kasoo koobi garaynaynaa, waa soo baxaynaa barnaamijka imaanaynaa. http host header meeshay tahay waa ka tiraynaa. haddaan rabno copy aan leenahay, laakiin haddii aad ka tirto iyadoo faaruq ee waxba aadan qorqorin xitaa http injector saani u tiro kale aa u tirto spaceki aa u sameyso soo dejinta ahaa, ka dambe copy aa ku dhahdo okay aa dhahdo caadi u noqona. ani hadda kana ii shaqeeyaba. inta kale boortagan 80 waaye, kan kale ii sheegeen sidooda ku dhaafay. inta kale waxaa ku taabanaysa malaha. enable dns-ka forwarding on aa leedahay. dns forwarding on aa leedahay. dns waa sameysane. dnn off waaye markii ugu horeyso on aa leenahay. ka dambo waxaa kusoo haray ii sheege send all traffic over vpn on off waaye on aa leenahay. saa on u gareenoo kale. automatic reconnect mulaaxadada ugu dambeysa waaye. meeshaan on inaa saarno waaye, meeshaan on ma saaro. on inaa saaro waaye. iyo meesha u dambeyso verify internet connective on aa leenahay. okay, intaan markii aan sameyno wifi iska xireynaa, daatada furanaynaa. ka dambo maxaa inoo dhiman hadda connect inaan dhahno. connect aan leenahay bese. hadda wax noo dhiman connect. okay, mar kale ku celiynaa connect. okay, mar kale saddexaad connect. okay, mar kale waa ku xiran yahay basaa ku xiran connecting. connecting okay, saa u wada jeedno connected waa dhahay. barnaamijka caadi u noogu shaqeynaya hadda. google iyo xaaja aad rabto waa isticmaali kartaa. laakiin internet free eh saana ku haysanaa. internet free eh saana ku haysanaa. isticmaalaynaa ki4a saana u isticmaalaynaa. saqradana u isticmaalaynaa. caadiya u isticmaali karnaa internetkena freega ee hadda. maasha allah. alxamdulilah. laakiin internetkena freega saana ku isticmaalona. internetkena freega saana ku isticmaalona. maasha allah shabaab. hadda wixii ka dambeeya waxaan u maleynaa waa ujeednaa internet free inaan isticmaalona. waa ku mahadsantihiin fiirsashada videoga. waxaana ka baqiilina like iyo hanaga baqiilina like iyo subscribe iyo ra'yigaaga wixii comment inaa kusoo qorto. youtube waa kan youtube suu u shaqeynayo. youtube-ka shaqadiisa hadda bilaabeynaa. video ugu horeeyo ku dhufanaynaa. maasha allah. videogan aa ku dhufanaynaa. xawaarihiisa xawaari saaid u sareeya waay. ujeednaa youtube-ka caadi u noogu shaqeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shabaab.